أصحابي كسر دوادا مركا لي 10 كان تحناها ما أنت 10 كانوا وحو كساب سنة قيب conversationka wada sheekaysiga ama wada hadalka labada qof u dhaxeeyo marka 10 kan maanta waxa waaye laba qof ay u dhaxeeyaa A and B ayaan u wadanaa labada qof marka sidan ay u dhacay 10ka conversation wada sheekaysi ab wada hadal laba qof u dhaxeeyo marka conversation hal qof kaligiis ma sameyn karo wuxuu laazim waa laba qof u dhaxeeyo ugu yaraan laba qof ay u dhaxeeyaa marka 10 sidan ay ku bilaawday what is today's date waa ma taariikhda maanta waa meeqa saaxiibkiis ayuu weydiinayaa what is today's date taariikhda maanta waa meeqa marka B ayaa u jawaabay it's July 5th wuxuu dhahay waa 5 July it's July 5th waxa waaye 5 July ayaan joognaa marka wuxuu weydiiyay su'aal kale ayaa su'aal marka hadlay wuxuu dhahay when are you going on vacation marka wuxuu dhahay goorma u socotaa fasaxa ama dalxiis la vacation hala dalxiis qof marka shaqada laga fasax ayaa marka ku jiro ayaa la marka waa safarka fasax marka qofka la siiyaa P ayaa hadlay marka wuxuu dhahay I'm leaving on Sunday waxaan baxayaa maalinta axadda ah we are going to Canada marka dad kale ayaa la jira dabcan Canada ayaan u soconaa marka ayaa hadlay markuu dhahay really ma run baa u dhahay the day after tomorrow maalinta biri xigta that's very soon waa aad bay u dhowdahay maalintaas maalin fog ma u dhahay marka maxaa maalintaas aad ay u dhowdahay marka really ma run baa u dhahay really runtaa miya the day after tomorrow maalinta biri xigta that's very soon taas aad bay u dhowdahay marka B ayaa hadlay marka wuxuu ugu jawaabay yeah I know waan ogahay taas inay dhowdahay marka wuxuu dhahay ayaa hadlay marka wuxuu dhahay how long are you going to stay there marka waqti intee la dhan baa halka ku joogi doontaa Canada waqti intee la dhan ayaa soo joogi doontaa halka marka wuxuu dhahay ugu jawaabay B ayaa hadlay marka wuxuu dhahay about 2 weeks ku dhawaad 2 week ayaan soo maqnaanayaa amal halka soo joogaya when are you going to come back goorma soo laabanaysaa safarkaas ku soo laabanaysaa ayuu weydiiyay saaxiibkiis when are you going to come back goorma soo laabanaysaa I'm coming back on the 17th July waxaan soo laabanayaa 27 July waan soo laabanayaa ayuu dhahay I'm coming back on the 17th July waxaan soo laabanayaa 27 July aan soo laabanayaa ayaa hadlay marka wuxuu dhahay all right okay ama la wada waa iska okay marka wuxuu dhahay have a nice trip safar wanaagsan baan ku rajeynayaa okay marka 10 markii labaad ayaan ku celinaynaa conversation wada sheekaysi ama wada hadal laba qof u dhaxeeyo what is today's date taariikhda maanta meeqa waaye maanta taariikhdan joogno waa meeqa it is July 5th u dhahay waa 5 July ayaan joognaa B u jawaabay when are you going on vacation goorma aadaysaa safarkaadii fasaxaad safarkiis goorma aadaysaa vacation dalxiis waa dhihi kartaa dalxiiskaada goorma aadaysaa afka soo qaad dalxiiskaada goorma aadaysaa marka B ayaa hadlay marka wuxuu dhahay I'm leaving on Sunday waxaan baxayaa maalinta axadda ah soo socoto we are going to Canada waxaan u soconaa Canada ayaan u soconaa ayaa hadlay marka wuxuu dhahay really the day after tomorrow that's very soon marka really runtii the day after tomorrow maalinta biri xigta that's very soon aad bay u dhowdahay marka wuxuu dhahay yeah I know waan ogahay B ayaa hadlay marka wuxuu dhahay ayaa hadlay wuxuu dhahay how long are you going to stay there meeqa waqti intee la dhan ayaa halkaas soo joogi doontaa ama ku sugnaan doontaa Canada soo joogi doontaa P ayaa hadlay marka wuxuu dhahay about 2 weeks ku dhawaad 2 toddobaad about 2 weeks muddo 2 toddobaad ayaa halkaas soo joogay ayuu dhahay ayaa hadlay marka wuxuu dhahay when are you coming back goorma soo laabanaysaa I'm coming back on the 17th July waxaan soo laabanayaa 27 July ayaan soo laabanaya ayuu dhahay ayaa hadlay marka wuxuu dhahay all right okay amal okay have a nice trip safar wanaagsan aan ku rajeynayaa safar khayr qaba ayaan ku rajeynayaa ama safar fiican ayaan ku rajeynayaa wax kasta aad u bedeli kartaa waa nice marka 10kan maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation u dhaxeeyo laba saaxiib is taqaano A and B
conversation sida hore usoo sheegnay waa wada sheekaysi. markii u dambeysay ayaan dul marayaa si degdeg ah. marka ayaa bilaabay wuxuu dhahay what's the day's date, maalin taariikhdu waa meeqa, maalin taariikhdu waa maxay, it is July 5th, 5 July waaye. when are you going on vacation, goormaa u socotaa fasaxaaga ama dalxiiskaaga. I'm leaving on Sunday, waxaan baxayaa maalinta axadda ah. We are going to Canada, waxaan u soconaa Canada, u soconaa dad kale la socdo dabcan. Really uu dhahay marka the day after tomorrow, maalinta berri xigtaa, that's very soon, aad bay u dhowda uu dhahay. ayuu u jawaabay no, waa ogahay taasna dhowdahay. saaxiibkiis marka wuxuu dhahay how long are you going to stay there, waqti intee dhan ba halkaa ku sugnaan doontaa. about 2 weeks, ku dhawaad 2 week ayaan halkaan ku sugnaanaya uu dhahay. halkaas waxaan joogi doonaa ama ku baqnaan doonaa Canada 2 week ku dhawaad. marka when are you coming back, goorma soo laabanaysaa. I'm coming back on the 17th July, 17 July ayaan soo laabanayaa. marka waa all right, okay, have a nice trip, safar wanaagsan ayaan kuu rajeynaa ama safar khayr qaba ayaan kuu rajeynaa. saa ula socotiin casharkeeni conversation ayaa weli ku dhex jirnaa. marka halkaa ayaan ku joojinaynaa maanta insha Allah. waxaan filaa inaad ka faa'iideen wax badan. haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka, like, share, kulli laguma sheega insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan hadday tahay marka kugu horeysa aad soo booqato channelkeena, subscribe saar, furo gambaleelka si aysan ku dhaafin casharada si maalinle aan usoo gelino. la wadaag asxaabtaada, waadna ku mahadsantihiin dhammaan.